kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida waa 16 bisha 7 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah qarax xoogan oo ka dhexdhacay shirkad isgaarsiin oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin laga helay ganacsada caan ah oo la dilay maxaa ka jira in farmaajo uu tagayo Imaaraadka isagoo ka walaacsan isbahaysiga cusub ee Fahad Yaasiin Khayre iyo Qatar al-shabaab oo shaaciyay magaca iyo qabiilka ninkii hogaaminayay weerarkii magaalada Kismaayo fariin culus oo ka timid qaramada midoobe oo la gaarsiiyay Axmed Madoobe iyo qalqal ka jira amniga doorashada oo shir xasaasi ah laga yeeshay ammaanka madaxtooyada Soomaaliya oo aad loo adkeeyay kadib xogo xasaasi ah oo xagga amniga oo la helay iyo Sacuudiga oo go'aan cusub ka soo saaray in Somaliland ay dhoofka xoolaha ruqsad uga hesho dawladda federaalka iyo in kale intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagoo fidsan qarax xoogan ayaa ka dhacay shirkad isgaarsiin oo ku taala magaalada Muqdisho iyadoo dhanka kalena faahfaahin laga helayo ganacsada caan ah oo la dilay qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay agagaarka isgoyska Balaxi ee magaalada Muqdisho isla markaana uu sababay dhimashada laba ruux sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in qaraxa uu ka dhacay xarunta shirkadda isgaarsiinta Somtel oo ay ku leedahay isgoyska Balaxi hase yeeshee weli aan la shaacin nooca qaraxa iyadoo laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ayaa tagay halka uu qaraxa ka dhacay kuwaas oo xiray wadooyinka soo gala halka uu qaraxa ka dhacay weli ma cadda nooca uu ahaa qaraxa iyo goobta la dhigay iyo in kale waxaana halkaasi baaritaano ka wada qaar ka mid ah hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kalena rag hubeysan ayaa la sheegay in barqanimadii maanta ay waaxda saddexaad ee degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir ay ku dileen mid ka mid ah dadkii ku nool xaafadaasi isla markaana la sheegay inuu ahaa ganacsade goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in rag hubeysan ay ninka ugu tageen goobtiisa ganacsi kuna toogteen isla markaana durba ay goobta ka baxsadeen sidoo kalena ay halkaasi tageen ehelada marxuumka iyagoo goobta ka qaaday meydka marxuumka sidoo kale ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa tagay goobta uu dilka ka dhacay iyagoo halkaasi ka sameeyay howlgalo baaritaan oo aan weli ka soo bixin wax natiijo ah weli ma cadda sababta loo dilay iyo dadka ka dambeeyay dilka ninka la sheegay inuu ahaa ganacsadaha waxaana uu qayb ka yahay dilalka inta badan ka dhaca gudaha degmooyinka gobolka Banaadir dhinaca kalena maxaa ka jira in farmaajo uu tagayo Imaaraadka isagoo ka walaacsan isbahaysiga cusub ee Fahad Yaasiin Khayre iyo waliba dawladda Qatar wargeyska The Ocean Newsletter oo hoostaga warbaahinta African Intelligence ayaa qoray in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu dhawaan booqan doono dalka Isutaga Imaaraadka Carabta wargeyska ayaa ujeedada booqashada Farmaajo ku sheegay inuu mas'uuliyiinta dalkaasi la sameeyo isbahaysi cusub isla markaana uu xaqiijiyo inuu yareyn doono saameynta Qatar ay ku leedahay Soomaaliya sida warbixintan lagu sheegay madaxweynaha ayaa ka walaacsan isbahaysi hoose oo ay sameysteen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ku-xigeenka iyo waliba siihayaha agaasimaha hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin iyo nin aan la shaacin magaciisa oo madax ka ah shirkad soo saarta shidaalka waxaa qoraalkan lagu sheegay in saddexdan mas'uul ay dawladda Kenya kala shaqeynayaan inay la galaan heshiis aan la shaacin waxa uu yahay wargeyska ayaa qoray in madaxweyne Farmaajo uu rumaysan yahay in Khayre uu xiriir qarsoodi ah la sameystay Qatar oo maalgelin doonta ololihiisa doorashada 2021 madaxweyne Farmaajo ayaa Khayre siiyay awood ballaaran si uu u xoojiyo taageerada gudaha xiriir aan la sameynay xafiiska madaxweynaha waxa ay sheegeen inaysan ilaa hadda waxba ka ogeyn booqashada la qorsheeyay in madaxweynaha uu ku tago dalka Imaaraadka Carabta sidoo kale xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha ayaa si isku mid ah u beeniyay sax ahaanshaha warbixinada la xiriira tuhunada labada mas'uul ay kala qabaan waxayna ku qeexeen wax aan jirin oo lagu qoslo tuhunka ku saabsan in Khayre uu madaxweyne isku soo sharxay 2021 waa mid muddo taagnaa hase yeeshee weli ma jiraan wax cadeemo oo muujinaya geesta kalena al-shabaab ayaa shaaciyay magaca iyo qabiilka ninkii hogaaminayay weerarkii magaalada Kismaayo kooxda al-shabaab ayaa 4 maalin kadib shaacisay magaca iyo qabiilka ninkii hogaaminayay weerarkii dhawaan ka dhacay magaalo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose idaacadda Andalus ayaa baahisay wareysi laga duubay ninkaas ka hor inta uusan dhicin weerarka magaca sargaalka horkacaya weerarkaasi oo sabtidii dhacay ayaa lagu sheegay Xasan Sheekh Nuur Kalaashi oo loo yaqaanay Subeer sidoo kale al-shabaab ayaa sheegay inuu ka soo jeedo beesha Eelay gaar ahaan Jufada Buharaad ee degta gobolada Baay iyo Bakool iyo Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya
Zubeer ayaa al-shabaab ku biiray sanadkii 2009 sida uu ku sheegay waraysiga laga qaaday. waraysiga oo soconayay qadar dhan 35 daqiiqo ayaa sidoo kale waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo la xiriiray weerarkaasi iyo ujeedada laga lahaa. weerarkan oo lagu bartilmaameedsaday hotelka Cascasey ayaa ku bilowday ismiidaamin iyadoona kadib rag hubeysan ay gudaha u galeen hotelkaasi. Jubbaland ayaa xaqiijisay in halkaasi lagu dilay 26 qof laguna dhaawacay 56 kale oo ay ku jiraan dad ajnabi ah. isla wararka arrimaha Jubbaland ayaynu ku guda jirnay. markana fariin culus oo ka timid qaramada midoobay ayaa la gaarsiiyay Axmed Madoobe iyo qalqal ka jira amniga doorashada Jubbaland. wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan ayaa sheegay in loo baahan yahay in deegaanada Jubbaland ay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah taasoo ku dhacda waqtigii loogu talagalay. James Swan iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe shalay kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ay isku raaceen in aan la soo faragelin doonin arrimaha doorashooyinka Jubbaland balse taasi bedelkeedana loo baahan yahay inay qabsoonto doorasho xor oo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda. kulankan Kismaayo ku dhexmaray madaxweynaha Jubbaland iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan ee looga hadlayay doorashada ayaa imaanaya xilli Jubbaland ay dowladda Soomaaliya ku eedeysay faragelin inay ku hesho arrimaha doorashada iyo cabasho ay qabaan qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland. dhinaca kale wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayaa shir gudoominayay kulan ay maanta yeesheen laamaha amniga Jubbaland waxaana ka qayb galay taliska ciidamada kala duwan ee maamulka Jubbaland. shirkan ayaa looga hadlay xaqiijinta amniga Jubbaland ka hortagga dhagarta cadowga sameynta howlgalo joogto ah oo nabadgelyada lagu xaqiijinayo iyo qodobo kale oo muhiim u ah amniga. afayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen oo markii uu shirka soo dhamaaday la hadlay Jubbaland TV ayaa sharaxaad ka bixiyay shirka iyo go'aanada ka soo baxay waxaana qeybaha kala duwan ee Jubbaland ugu baaqay inay ciidanka amniga kala shaqeeyaan xaqiijinta nabadgelyada. dhinaca kalena ammaanka madaxtooyada Soomaaliya ayaa aad loo adkeeyay kadib qalqal amni oo la dareemay. xog laga helay ilaha ammaanka madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in feejignaan xoogan laga galay weerar al-shabaab ay ku soo qaadaan xarunta Villa Soomaaliya oo ah meesha dalka looga arrimiyo kuna yeelan xafiisyada ugu sareeya dalka. laamaha amniga ee madaxtooyada ayaa ka warhelay inay al-shabaab qorsheynayaan inay weeraro isugu jira qaraxyo iyo mid toos ay ku soo qaadaan Villa Soomaaliya isla markaana ay doonayaan inay mid ka mid ah baraha koontaroolada ee xarunta laga ilaaliyo ka soo galaan sida wararkayna ku helayno. caadiyan waxaa aad loo adkeeyay ammaanka xarunta iyo baraha laga ilaaliyo waxaana la dhigay ciidamo aad u badan hubka noocyadiisa kala duwan oo isugu jira kuwa culus iyo kuwa fudud iyo difaacyo adag sidoo kalena gaadiidka xarunta madaxtooyada galaya ayaa aad loo baaraa. saraakiisha ciidamada ilaalada madaxtooyada ayaa ku wargeliyay askarta inay feejignaan dheeri ah galaan isla markaana si adag dhabarka ay ugu ritaan dhagarta cadowga si aysan fursad ugu helan weerar ay ku soo qaadaan madaxtooyada. al-shabaab ayaa marar badan waxay weerar isugu jira qaraxyo mid toos ay ku qaadeen madaxtooyada inkastoo aysan u suurtagelin inay ka gudbaan baraha ciidan ay xarunta ka ilaaliyaan. ugu dambeyntiina Sacuudiga ayaa go'aan cusub ka soo saaray in Somaliland ay dhoofka xoolaha ruqsad uga hesho dowladda federaalka iyo kale. dowladda Sacuudiga ayaa ku adkeysatay dalabkeeda ah in ganacsatada Somaliland ay doonaya inay xoolaha u dhoofiyaan dalkaas ay ruqsad ka soo qaataan dowladda federaalka ee Soomaaliya. arrintan ayaa timid kadib markii dhawaan la sii daayay markab ka shareecday dekedda Berbera oo ku xirtay magaalada Jeddah kaas oo muddo la hayay kadib markii uu Sacuudiga tagay isaga oo ruqsad ka haysan dowladda Soomaaliya. sida la sheegay markabkaas ayaa lagu sii daayay wadahadalo dhexmaray wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Sacuudiga ganacsato u dhashay Somaliland iyo kuwa Sacuudiga ee xoolaha la wareegayay. kulankaas ayaa waxaa ka dhashay isla markaana dhinacyada ay isla garteen in markabka laga dejiyo xoolaha isla markaana haatan wixii ka dambeeya Sacuudiga aan la geyn xoolo aan warqad caafimaad ka wadan dowladda dhexe ee Soomaaliya. sida ay ogaatay warbaahinta wararka Soomaalida ganacsatada Somaliland iyo wakiilo Somaliland ugu lug lahaa kulankaasi ayaa la sheegay inay aqbaleen inkastoo kulanka golaha wasiirada ee Somaliland aysan ku soo hadal qaadeen heshiiska markabkaasi lagu sii daayay. dhawaan ayay ahayd markii Somaliland ay beenisay in ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu sii daayay markabkaasi. dalad ay ku midaysan yihiin ganacsato xoolaha ka dhoofisa magaalada Boosaaso ayaa iyaguna la sheegayaa in ganacsatada Somaliland shuruud uga dhigeen inay warqad caafimaad ka qaataan Boosaaso si xoolahooda loogu dhoofiyo dalka Cumaan. dalka Cumaan ayaa bil kasta loo dhoofiyaa 10,000 oo dibi kuwaas oo ka baxa dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari.
dalalka Sacuudiga, Yemen iyo Cumaan ayaa ah dalalka ugu badan ee Carbeed ee dhoofsada xoolaha kala duwan ee laga qaado xeebaha Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino. waana mahadsantihiin.